هي فيتامين كان ماما إيه كانتي ما آمن سنين إن أنكو عافماد الدونة ديدا وحن كإيري إلا شرمل بان عافماد وتجي وحنا كبفائد المركة وإسكتر يجري أنا معناها أنا كوقنا حسنين وإسكفير له الحمد لله ما لنت رئيسي حوجا وحما إسكبدله ما لنت اللبات ذلك بدنا بقى إجابة إيه كان كرتا وأنا عبي runtii marka hore murqaha aad ay igu kicisay oo aad ay ii xanuujisay laakiin markaan waday oon deynin murqihii waa ku ladnaaday waan socday heer waxaan bagaaran basaskan raaci jiray iska daayo on lugaha aan lugtayda ay baabuuray ay markaan fitamiinkan bilaabahayay aad baan u xanuunsanaa fitamiinka dhan baa aad igu yaraa naqaska igu dhagahayay oo xitaa anoo gurigayga ka baxo streetka marahaya neeftu inta igu dhagtay ambulance waa u wacday markasteeto oo macnaha la ibaaro machine ba 24 hours la igu xiraay la dhahaa macnaha waxaan arkaynaa waxa wadnahaaga ka qaldan hadana waxaan barigi wadanka Soomaaliya dagaaladu ka socdeen lugtu waxay ga dhacday halka cidhibta in badan kama taagnaan jirin in badan ma socon kari jirin maantana alxamdulillah intaan doono waan socon karaa intaan doono waan taagnaan karaa maxay tahay meel xanuunaysa xanuunna kama dareemayo بسم الله الرحمن الرحيم وحن مانتا وغشا يا ولا ليال اللهم صل على محمد كمبنيغان ريليف ليراهدو كمبنيغان ريليف با ليراهدا waxaan rabaa qof kasto oo ku hadlaya afka Soomaaliga inaan u sheego waxa uu tar iyo waxa uu qabto kambaniga kani wuxuu ku taagan yahay afarta lugood waa kursi afar lugood leh marka waxa weeyaan macnaheedu waa opportunity company or nutrition iyo maxaan ku raadaan mission waa sida weeyaan macnaheedu waxaan doonayaa marka inta oo kaliya inaan kala macneeyo insha Allah bil kareem saad uga shaqaysataan iyo saad wax u fahantaan iyo saad u cabtaan productiga company-ga kan waxa sameeyay ninka kan Dr. Ted Cologsi baa la yiraahdaa isaga ayaa sameeyay oo alifay waayo wuxuu ahaa nin dagaalkii labaad oo adduunka ka jabay dhabarka isaguna u dhashay wadanka Greek markii uu dhabarka ka jabayna waxa weeyaan waxa la yiri waxba laguma qaban karo laguma daaweyn karo ninka kani wuxuu bartay markii uu sii hore cilmiga biology-ga la yiraahdo dhakhtar buu ahaa markii uu isagu uu cabay oo 10 sano sameeyay oo isku daray fruit iyo vegetable iyo fish iyo masago iyo galey iyo sareen iyo digir ayuu weeyaan wax isku daray markii uu cabay isagu 10 sano uu cabay dhabarkiisa baa u kamay ninkan wuxuu tagay jaamacadihii qodbad buu ka jeediyay isagoo u sheegayay waxa ay tahay relief iyo waxa uu sameeyay oo nutrition uu ka sameeyay afkeena Soomaaliga waa nafaqo ninka kani markuu jaamacadii qodbada ka jeediyay waxa dhageystay nin wiilkiisu jaamacada dhiganaya loo oran jiray Rabad Mogamri isagoo walaalayn dheer u ahaa oo ready nin maxaan ku raahday lacag la'aan hayso ma ahayn markii uu wiilkiisu dhageysto u sheegay wuxuu waxaan soo arkay nin ku fiicnaaday isagu wax uu sameystay oo la yiraahdo nafaqo ama nutrition marka bal ninkan la kulmay waayo ninkan muxuu haystay isagu wuxuu haystay dhibaatada ah health problem ama xagga caafimaadka problem ku haystay waxa uu ku dhacday burada la yiraahdo kansarka oo maskaxda waxaana la yiri hadii lagu qalo ama waa dhimanaysaa ama paralysis baad ahaanaysaa waligaaba ninka kani ninkii buu la fariistay markuu la fariistay oo u sheegay wuxuu uu ku ladnaaday dhabarkiisu ugu fiicnaado oo u tusay waayo dadkani normal wax iska sameeyay iyagu story cajaladay duubaan markii uu isku sameeyay uu tusay wuxuu yiri horta aniga saana la yiri dhibaatadana haysta lacag la'aan ima hayso dhakhtarna ma ay maxaad igu caawin kartaa wuxuu yiri cab alaabta tan markii aad cabtid 6 bilood dhakhtarka galbu yiri oo bal qalida tag ha lagu qala operation ka lagu sameeyo ninka kan 6 bilood markuu cabahayay nutrition ka ama nafaqada hadda meesha ku arki doontaan hadda oo daashada aan ka tusi doono ayuu dhakhtarka tagay 4 bari markii qaliinka lagu sameeyay dhakhtarka ka baxay qof kasta oo maskax laga qala iska day qof meel laga qalan 4 bari kuma fiicnaado qof kasta bilow qaata ama 6 bilood ama 7 bilood gabadha xataa ilmaha lagu qalo waxa ugu yaraatee 3 bilood ayay ku istaagi kartaa ku socon kartaa ku qabsan kartaa ninkani markuu uu fiicnaaday lacagtiisi oo dhan buu galiyay wuxuu yiri anigu waa saan ballantii ninka hore oo ka qaaday waxaan gelinayaa lacagtayda oo dhan warshadii oo horeysay ayuu taagay wuxuu ka taagay San Luis America meel la yiraahdo ku taala America oo San Luis la yiraahdo ka taagay
maalkiisii oo dhan buu geliyey haddeerna waxa ay joogaan 18 waddan 25 sano ka badanna way shaqaynayaan maxaan ku dhahay 18 waddan waxaa ka mid ah Australia New Zealand Europe oo dhan Malaysia Philippines Japan meesha la yiraahdo Nigeria Sudan ayaa ka mid ah ma wada dhameyn karayo oo wadamada ay joogaan oo dhan inta oo kun oo qof baa ku fiicnaatay oo ku ladnaatay oo ku wanaagsanaatay waxa sameeya waxa kan waa dhaqaatiirtii oo sameynaysa oo hagaajinaysa ama iyagu maxaan ku raadaya ka shaqeynaya xataa waxay leeyihiin jaamacad haddii aad doonayso aad gali kartid oo aad rabto inaad ka barato caafimaadka relief haddii ilaahay yiraahdo wiilka kan waa wiilkii uu dhalay ninkii maxaan ku raadaya Robert Montgomery oo jaamacadda dhiganaya aabihiis u sheegay inuu macgaranaysaa ninkan markuu jaamacadda ka dhageystay aabihiis uu haystay dhibaatada u soo sheegay buu kamid ahaa hadeerna isaga ayaa kambaniga gacanta ku haya ninka kan Dr. Carl Hest baa la yiraahdaa waa dhaqaatiirta ka shaqeysa life ban anigu ula kulmay markii aan u yimid Birmingham oo shir weyn lagu qabtay life ban ula kulmay waa nin doctor oo isagu ka shaqeeya waayo qayb badan ayuu isagu hadda sameeyaa qaybta waayo ninkii hore uu dhintay oo doctorka ahaa waatana hadda qaybtan hadda aad arkaysi waa nafaqadii midda galaasiga iyo nawda oo isku mid ah energy iyo maxaan ku raadayay Faberstone iyo midda leeyahay sleep city waa qaybta loo ogolaaday way farabadan yihiin waa qaybta loo ogolaaday Europe laakiin way farabadan yihiin qofka Mareykan jooga product farabadan buu helayaa tii sonkorta meereysuu helayaa tii wuxuu helayaa cholesterol ka dhaqaysay tii wuxuu helayaa arthritis-ka meereysay wuxuu helayaa tii murqaha feereynaysay wuxuu helayaa tii dumarka loogu talagalo oo Zoya la oran jiray qaybtan waa qaybta Europe ay ogolaatay waayo waxa anaga naga diiday inay laysankana siiyaan oo la soo galiyo qaybahaas kale Ingiriiska iyo Jarmal sababta ay u diiday Europe-na waxa weeye waxay yiraahdaan anaga waxa xirmaya hena jasta markii aanu weydiinay dhaqaatiirta ama nimanka gambaniga leh oo aanu maxaa qaybtan Europe loogu diiday waxay yiraahdeen anaga waxa xirmaya hena jasta waayo productigi noo yaalay usuluunka iyo kiniinka cid naga ma qaadanayso hadii aanu keeno midatan waayo tan basiga oo fitamiinka baan ogolnay oo kaliya qaybta solutionka oo dhaqaysa xanuunkii maba ogolin bay yiraahdeen hadda waxaan rabaa inaad walaalayaal inii sheego on history oo kala duwan oo qof walba oo wax ka arkay caafimaadkiisa iyo sida uu ka helay iyo wax uu yahay anigu haddaan isaga keen bilaabo magacaygu Xalimo Aadan weeye waxaan ku noolay wadanka UK magaalada Birmingham relief ka horto waxaan ahaa qof xanuunsanaysa waxaan qabay gastric iyo arthritis xanuunka leeyahay ama rheumatism-ka aynu u naqaano qof cayilina waan ahaa oo 150 kiilo alxamdulillah ilaahay ma hadda u sugnaatay maanta gastric uu iga guuray ay nooc xataa basbaaska ugu kulul baan cuntada cunaa maxaan ku raadaa lagu xanuunku waa iga tagay iyo dhabar xanuunkii oo tarayska xanuunka loorinji ama rheumatism-ku iga baxay oo caruurtan beeriyada hadda orodkaygaaba laga yaabaaba maxaan ku raadai hilibkii waa iga dhacay oo 65 kiilo iga dhacday qof weyn oo 63 sanaan jirtaan ahay laakiin gabdhaha iga yaro 30 jirka ay maanta ma ordi karaan maana socon karaan waxaan ku soo dhaweynayaa halka kan Zainab Giyaaje oo ayaduna in kaga sheekayn doonta historigeeda iyo waxa ay ka aragtay relief insha Allah bil karim Zainab ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أنا وحنا زينب Giyaaje أنا وحنا قبي عذر كلي ده هذا طه محل هذا روماتيسنك أما الله فحنونك مرقية ده وحاجة قد عي حنون بقول كيف التدباك ودينتي دكتور يدهدين لفها يوحي قاعدين وقت عاد فربضنا ونحنو سنة وإلى تدبير توان سنة ولفها وحي يدهدين إلى 6 شير بعتها أو ما عرفت يصير قرارة ده أو كلا بين نقدين وخفيفين وأنا مذوبادين سيدا رنتي عاد وحي يقول بحي قرش عاد فربضن مالك استوان عافمات كرهات سنكرابا وانكرهات سدي وانا تجي لكن الحمد لله وحبك مهلين وان شبي أرحض أنك شبي لقطة وان كشبي هدان ساعة يسوب بورا وان شبي الحمد لله أنا شبان أيا قبل ولا له إلهي خير سيء
saddex daasadood oo ka mid ah faytamiinkan ii keentay maalintii ay ii keenaysay ismaan lahayn waxba way ku tarayaan laakiin waan cabbay mana seexan karaynin sida runtii ah oo hurdo la'aan baa igu dhacday timuhu way iga hooreen waxa weeyaan alxamdulilah rabbil caalamiin tacab aad u fara badan baa i haystay waan cabbay galabtii markay ii qastay ay igu tiri waan ku caafimaaday cab iyadana ii keentay anigu aanan garanaynin bay ii keentay oo markii tacabkayga aragtay ayay ii keentay markaan cabbay habeenkii waa seexday hurdo macaan baan seexday oo aan soo kacay ka bacdi waan cabbay kaarkii waa igu badisay bishii hore sida runtii oo meel kastoo ay xanuunaysay way i xanuuntay laakiin bil kadib meel waliba way ii fiicnaatay saasay tahay maxay tahay meel waliba ay xanuunayso de qof jaban baaban ahaa aad iyo aadna waan u bararsanaa 3 maalmood markaan cabbay bararkii oo dhan baaba iga dhacay kadib alxamdulilaahi rabbil caalamiin caafimaad aad u fara badan baan ka helay lafahaygu way ii kabmeen jirhkaygii xanuunkii wuu ka baay waa idinkaa arkaya aad iyo aad baan u caafimaad qabaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay bayna mahadi u sugnaatay marka qof kasta oo xanuunsan waxaan ku waaninayaa inuu cabbo fitamiinka relief sida runtii xiiq baan qabay oo xiiq baan qaaday xiiqdi way iga maxaa neef waxa la yidhaahdo neeftii way iga ba'day allergy baan lahaa oo maxaa tahay jirka dhan baa ay cuncuni jiray maalintii 4-5 goor baan maxay ta qubaysan jiray haddeertana dhusuqlay baan noqday in anigu iskay u qubaysto mooyaane meel la ima xanuunto waxna ma i dhibaanba sida runtii meel haddaan soo galay xitaa xidhan sida runtii waan iscuncuni jiray dibaddaan uga boodi jiray kadibna ilaa aan dharka iska furan qubaysto ma aanan maxay tahay jirkaygu caafimaad ma heli jirin finan badan baan lahaa wajigayga haara badan baa ku yiilay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxna ma isticmaalin cabbidii aan cabbay normal baa jirkayga oo dhan wada noqday waxaan qof kastana ugu ku boorinayaa inuu cabbo waana sida runtii waxaan sameeyaa mar kasta qof kasta oo xanuunsanaan maqlo waan u sheegaa waayo waxaan dareemaa saan u xanuunsanaa iyo ilaahay caafimaadku ii siiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu productigan relief ayaa rabaa xoogaa inaan ka taataabto productigan relief maalintii aan bilaabay aniga run ahaantii waxaan qabay murqa xanuun oo maasir spainka ay dadka yidhaahaan jaranjarada markaan guriga kor iyo hoos way kor haddaan kasoo dego badanaa maan aadi jirin maan socon jirin oo jirka ay xanuuni jiray waan tamar yareeyo waan tamar dhacay mudday i waday maalin ka mid ah gabar khayr qabtaa ah ii timid oo ii tiri iyadoo ani ilama ay dal lahayn laakiin ayadoo dukaan ku jirto dukaan ka sheekaynaysa ayaan maqlay markaan maqlaan walaalay ma ii keeni kartaa waan cabbay runtii marka hore murqaha aaday igu kicisay oo aaday ii xanuujisay laakiin markaan waday oon daynin murqihii waa ku ladnaaday waan socday heer waxaanba gaaraan basaskii raaci jiray iska daayo on lugaha aan lugtayda ii baabuure ii taxi aan iraa gabar kale waxaa jirtay aan saaxiib nahay iyadana oo qabtay buradan cunaha ama thyroidka loo yaqaano gabadhii ayaan u sheegay waxaan idhi wallaahi bahashaan aniga waxweyna isaga gartay gabadhii gabar ajnabi ahayd xitaa isku jinsiye maanaan ahayn gabadhii markay saddexdii qosoo horeysa markay cabtay ilaahay wuu ka qaaday hadda gabadha ilaa hadda caruurteedoo bugtay dad badan oo kala nooca marka bahashan waxyaabo badan aan kasoo joognay beena sheegi mayno waxaan anaga dadku ku waaninaynaa nin kastoo jiran oo Soomaaliya ma dheelitirna waa la isogyahay Soomaali nafaqadeeda iyo jirkeeda hawadayadii ma ahane waxaan ku waanin lahaa bal ka war keena oo bal arka kadib idinkana sidoo baad uga warbixin doontaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga Salma la yiraahdaa waxaan deganahay wadanka UK magaalada Birmingham waxaan rabaa caafimaadka aan relief ka helay inaan wax yar idinkaga sheego ma soo koobi karo macnaha haddii aan damco inaan soo koobo waqti dheer bay qaadanaysaa laakiin inta ugu muhiimsan baan idinkaga sheegayaa insha Allah markaan fitamiinkan bilaabahayay aad baan u xanuunsanaa fitamiinka dhan baa aad igu yaraa naqaska igu dhagahayay oo xitaa anoo gurigayga ka baxo streetka marahaya neeftu inta igu dhagtay ambulance waa u wacday
markasteeto oo macnaha la ibaaro machine baa 24 hours la igu xiraayo la dhahaa macnaha waxaan arkaynaa waxa wadnahaaga ka qaldan haddana waxaa la dhahaa wadnahaaga waxba ma qabo waxaan hadda kaa daaweynana ma aragno mana garan karno waxa macnaha keenaya inay neefta kugu dhagto neef waa la iga baaray wax kasta waa la iga baaray Soomaalida intaan hadda macnaha aan ognahay wadanka la yiraahdo Jarmal meel ka dhaqaatiir fiican oo la aado ma jirto ilaa 3 jeer baan tagay sidoo kale ta iyaguna ii baareen waxa ma qabtid baa la igu yiri alxamdulillah maxay ahayd alaji badanna waan qabay hadda meeshan aan joogno kale ta ma joogi karinin awal laakiin hadda meel kastaan joogi karaa ama qashin ha ahaato ama nadiif ha ahaato shaqadayda ma ahan macnaha allergiga yahay aad buu qatar u ahaayo inaan xitaa aan dadka soo salaamaan ka cariiri jiray sababtoo tahay markii agooraha kala duwan uu igu dhaco igu kici jiray alxamdulillah marka aan helayo fitamiinkan maama ii keentay ma aaminsanayn inaan ku caafimaadi doono niyaddan waxaan ka iri ilaa Jarmal baan caafimaad u tagay waxna kaba faa'iidin marka waa iska taraagareeyay anoona macnaha aan ku qanacsanayn oo iska fiiri leh alxamdulillah maalintii u horeysay xoogaa waxba iska bedelay maalintii labaad daalki badnaaba iga ba'ay maalintii saddexaad anoo sidii ilmo yar u seexday oo u soo kacay baan soo kacay alxamdulillah naqaskii ugu dhagay maalintii ugu dambeysay allergiga sidoo kaleeto 18 bilood baan hadda cabahayaa intaas dhakhtar xanuun uma tagin awalna wiigi 2 jeer 3 jeer baan tagi jiray markaan ugu yaraado haddana alxamdulillah caafimaad aan la koobi karin immune systemkayga oo kor u soo kacay calciumka iyo D3 oo main problem macnaha dadka Soomaalida oo dhan ku ah yaa kor igu soo kacay 7.5 meeshay ka ahaayeen 65 bay ku imaadeen 2 week iyo bar 3 week iyo bar hadii aan dhaho alxamdulillah gabar yar oo ii joogtana waxay qabtay nuts allergic nutska waxa waaye looska waa taqaanaan macnaha iskuulaha kale waxa laga siiyaa warning baa laga siiyaa inaan la soo galinin gabadhayda allergic nutska qabtay alxamdulillah maanta ma qabto markaan ku bilaabo ugu dambeysay neef bay qabtay neefti ma qabtay alxamdulillah waa laga saaray rekoorkeeda marka insha Allah qof walba waxaan leeyahay adoon macnaha markaas lahayn 100% waad ku caafimaadaysaa iska taray garee adaa heli doona resultiga insha Allah sidaan anaguba u helnay waana maxay ahayd oo idin dhihi lahaa waa wax jirkeena u fiican wadamada aan imaanay wixii jirkeena u bartay kama helno qorax kama helno cunto dheeli tiran kama helno oo nafaqo leh cuntada waa iska cunaa laakiin waxa ma tarto ma ahan cuntadii wadankeena oo kale fitamiin kuba jiro mineraalna kuba jiro maxay ahayd wax ku jira iska yarba calooshay ku buuxinaysaa jirkana way ku buuxinaysaa iyadoon caafimaad ahayn marka insha Allah waxaan idin leeyahay caafimaadkiina ayaa wax walba ka qaalsan iska taraagareeya dadka waxay u arkaan inta badan inay qaali tahay ma ahan qaali markaad bilowdo adaa arki doono inay raqiis tahay macnaha lacag la'aan ay kugu soo gali doonto markaad dadaasho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah assalaamu calaykum magacayga waxa la Samiira Ibraahin waxaan deganahay magaalada Birmingham ee cariga Ingiriiska waxaan rabaa halkan inaan insha Allah maxay tahay ka sheego waxaan ka arkay company-gan Relief ama productigan ama nafaqadan qofka sidoo yaqaano markii ugu horeysay aan Relief bilaabay hooyaday baa xanuunsanaysay waxa hayay maxay tahay xanuunka la yiraahdo sonkorteedu waxay noqotay high type 2 bay ahayd 30 bay ahayd way ka degi weyday 30 ka had iyo jeer dhaqaatiirtu waxay sheegtaa inuu yahay ka dadku ay koomada ku galaan hadday dhaafto ama ay 30 kaaba gaadho in badan bay dhaqaatiirtu isku dayday inay caawiyaan oo sonkortan ay dajiyaan laakiin ilaahay maxay tahay xaqiisa way suurtoobi weyday kiniinadii bay dhowr jeer ka bedeleen adigu 3 jeer bay ka bedeleen kiniinadii mar walba waxay siiyeen midkii hore ka sareeya wax isbedela 1.6 xitaa kama dhicin 30 kun bay saa u taagneed 2 jeer bay dhulka ku dhacday gacan bay marka jabtay marna adinkay wax ku noqotay because way wareeri jirto markay istiraado sare isu taag bay wareeri jirtay dabeedna way duuli jirtay marka darbigii bay gacantii ku dhufsatay dabeedna gacantii way jabtay aqalka ka baxday bistin meel gaadhana cadceed ka day markay guriga istiri soo galan way wareertay dabeedna way duushay marna ruug bay wax ka noqotay alxamdulillah maantana markii aanu maxay tahay nahay saaxiib ay keento iyaduna ku ladnaato qof aad u weynahayd qof lafaha laga hayo haysatay robadiisana ahayd dabeedna waxay tii anigu bahashan hadda ka hor baan ku ladnaaday waa idinka arkay alxamdulillah kursigii waan tuuray waan ku caafimaaday waaniga ma sha Allah ku noqday maad siisid oo ku tijaabisid waa intaas oo Ilaahay caafimaad ka siiyay
runtii anigu markii hore waan ka boqon waxaan ku wuri ma siin karo dhakhaatiir baa hadda faraha ku haysa haddii dhibaato uga timaado waa qof weyn waa lay qabsanaya waxa lagu dhahay waxaan aad siisay waa maxay oo ay ku sii tabcaanto marka waan ka baqayaa ma siin karo waxay tiri si waxani maaha wax dawo ah wax maaragtay jirkeeda wax yeelayana maaha waa wax faytamiino jirka ka maqan waxaba la arkaa inay ku fiicnaato ku ladnaato oo ilaahay caafimaad ku siiyo waana qudrad la shiiday wax dhibaato u keenaysaana ma jirto maamadina way ku dhagtay waxay tinaa isii waaba qof islaam oo ilaahay soo diro waaba intaasaan ku caafimaadaay ii qooshmaan amaan dhinta amaan noolaade dabadeedna way qooshay inantii baaba halkii ugu qooshtay way cabtay galab bay noo keentay subaxii waxay tii maalintii 2 jeer waa inaad u qoostaan 2 jeer baanu u qooshnay waanu siinay 3 cisho markay cabaysay waxay had iyo jeer odhan jirtay maamu maxay tay jirka olol bay iga baxaya wuu gubanaya kulayl baan dareemayaa maxay tay kuulka iyo meesha ay seexato way kala bixi jirtay lugaha markay habeenkii jiifto alxamdulilah ilaahay wuu qaboojiyey jirkeedii baa qoyay maartay wixii kulaylkii iyo wixii ay dareemaysay deeqadii ilaahay waa ka biyey maantana waxay noqotay waxa weeyaan qof maasha Allah soconaya oo in allaale intay maartay intay socon karto inta qof socon karaya guriga haddaan ku dhahdo hooyo 2 carruur aan iga yara reebaan shoomi doon xanuunsan amaandhe carruurtaada ka xisaan u dhukayga qabanaya awal dhakhtarku wuxuu ka kari waayay jiray 5 minutes ha hatee roodka waynaad wadada sii raacdaa soo raacdaa intaas waxay ku taraysaa because circulation-ka dhiigga ayaa shaqaynaya wax laga yaabaa sonkortu inay ka yaraato markay cabaysay adigu 2 week sonkorteedu way dhacday waxay noqotay 26 2 week oo kale markay cabaysana waxay noqotay 18 labadii wiiga markay waxay tahay 6.6 bay noqotay way degtay dhakhaatiirtina way yaabtay maxaa siiseen bay tiri dabeedna waxay timaanday qaadaasadahan inuu tusaynahay qoraane kuwan cabtay ku dhax ma oranaya baan ku leeyahay kuwan cidina isu qorimaysa danaha uga iibsanaya wala ina qabsanaya ha inagu tusin mayesi anyway markay dhamaysatay waan dhakhtarka waxaan ku waxa saanu siinay waa wax fiican bay yiraahdeen waxaan xaq ka hesheen online baa laga helay online baan ku iibsanay qof faranska iyaga tusay baan ku saaxiibnahay dabadeedna haday afford karto iibsatay bay caawinaysaa sidii bay hadda 1 year last year April bay bilowday ilaa iyo haddana way cabtaa adduunyada maalinta ay cabina waxay u tahay adduunyada gabagabo barnaamijyada alaabtii oranaysa soo qosh maanta anigu lugtan bay xabad iga dhacday barigii wadanka Soomaaliya dagaaladu ka socdeen lugtu waxay iga dhacday halka cidhibta in badan kama taagnaan jirin in badanna ma socon kari jirin because way barari jirto waxay noqon jirtay wax bararsan oo kaaraysa seedahayga waxaad moodi jirtay in electric la saarayo waxba shock bas ay qabsan jiro markaasaan lugtaba saa dhulka uga boodi jiray qaylin jiray maantana alxamdulillah intaan doono waan socon karaa intaan doono waan taagnaan karaa maxay tahay meel xanuunaysa xanuunna kama dareemayo aad iyo aad baan alxamdulillah aad iyo aad baan u fiicanahay aad iyo aadna maartay maasha Allah waxaan haystay 2 carruur oo yar yar oo energy qaba ama cuncun jirka ku haysta habeenkii may seexan jirin way isxoqi jireen dhulka laabatooyinkaas oo dhan bay isku xoqi jireen iyo qoortiyo dhulka dabadeedna alxamdulillah ilaahay wuu ka kaxeeyay jirkoodii baa u soo noqday way wanaagsanaadeen dad maanta maasha Allah iyo aan wixii qabin bay noqdeen ilaahay wixii ka kaxeeyay marka qof kasto islaam ah ama qof kasto oo maaragtay afkayga garanaya waxaan kula talin lahaa oo xanuun haysta inuu taarigareeyo relief waa product cidna wuxuu ma yeelayaan waana waxaad wanaagsan oo natural ah waa wax maaragtay vitamin A oo cidna waxba yeelaynin waxa jirkeena ka maqan weeyaan marka waxaan oran lahaa dadka xanuunsanaya ama dadka nafaqooyinka vitaminada ay ka yar yihiin inay isticmaalaan oo nala taarigareeyaan oo nala arkaan wixii aanu ka aragnay ama aanu ka helay insha Allah assalaamu alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Felis run ahaantii waxaan jeclahay dadka Soomaaliyeed ay daawanaya inaan maxaa hayto aan u sheego storygayga ku saabsan productigan markii aan qaatay especially familygayga iyo markii horeeto waxa u dhaxeeya iyo faa'iidada ka helay aniga waxaan maqlay productigan oo la ii sheegay muddo 2 sano ka hor ah markii aan maqlay wanaaga iyo waxa laga helay suu u caawiyo dadka maadaama uu vitamin yahay ayaan waxaan go'aansaday inaan maxaa hayeeto aan ku biiro kambaniga oo ka dalbado productigan sababta iigu weyn waxay ahayd waxaan haystay ciyaal uu ku yar yahay maxaa yeeta hadalka uu ku yar yahay fahmada sababta waxa ka soo daahay hadalka ciyaalka meel ay erle ka hadlaan ayaga 3 sano markay xagga u dhaafaan bay hadalka bilaabeen
ka dambeeta iskooladii waxay noqotay in caawis ay ka rabaan sababtoo ah ciyaalka la eejkooda oo la galaaska ah way ka hoos mareen dhinaca waxbarashada markaan ku bilaabay runtii waxaan ka faa'iiday oon ku arkay ciyaalkii isbedel aad u weyn oo maxaa hayata aan xataa wax yar aan ahayn saa'id ah sababtoo ah waxaa furmay codkoodii hadduu gaaga ahaa faseex buu noqday fahmadoodii baa furmatay waxbarashadoodii isbedel weyn baa ku dhacay heer waxay gaareen xataa macallimiintoodii la hadlaan ay dhahaan ciyaalka aad bay isku bedeleen waana ku faraxsannahay laakiin waxaan kaa rabnaa waxa aad maxaa ku samaysay maxaad yacni saan isku bedelay marka waan u sheeg waxaan iri yacni waxay dhaheen ma waxaad u qabataa tiijaro oo ka caawisa after schoolka guriga anigu haabaan iri markaas lianna maxaa productigaan siiyey ma dhihin run ahaantii laakiin anaa og inaan productigaan siiyey oo maxaa saas u caawiyey ciyaalkayga alxamdulillaah mar walba hadda waxay la mid yihiin leefalka ciyaalkooda dugsiga iyo maxaa xagga iskoolka labadaba maxaa meeshay taagnaayeen sanad hore iyo maxaa iyo haddana isku mid ma ahan marka aniga faa'iidadaas ayaan maxaa ka helay waxaan la dardaarmi lahaa hooyo kastoo Soomaaliyeed ama aabba kastoo Soomaaliyeed haddii uu ka walwalsan yahay dhinaca ciyaalka ama waxbarashada iyo hoos ku yihiin ama ku speechka uu ku yar yahay inay ka faa'iideystaan oo siiyaan ciyaalkooda mana ka shallaayin alxamdulillaah mar walba waan ku mahadiyaa haddii la u soo noqdo aniga dhinacayga aniga waxaan wax markii aan productigaan galay run ahaantii sidaan nii soo sheegay waxa iigu darnaayoon u galayay waxay ahayd maadaama aan maqlay inuu maxaa yeeto storyyaal saas oo ku saabsan uu ciyaalka caawiyo ciyaalkayga bay ahayd laakiin aniga markaan wara dalbado ii yimaadeen productiga dadka waaweyn waa isticmaalay anoo markaas leh waxbuu kaa fujinayaa islahayn laakiin waxaan ogaaday gaas iyo sambooraan qabay inuu aad iiga maxaa caawiyey oo labadiiba iga baxeen storygayga intaasaan kusoo gabagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi asalaamu calaykum walaalayaal magacayga nasro baa la dhahaa waxaana degnahay Birmingham runtii aniga fitamiinahan waxaa u qaatay dhinaca caafimaadka waxaa la ka hayay kilida muddo badanna kilida baa xanuuni jirtay ugu dambeys dhakhtarka markaa aadalay ku sheegay inaa kidney stones haystay oo markaasna maxaa la u baahnaa operation inaa u tago liga saaro saasna markay dhacday hooyaday baa ila talisay waxay dhahday wadamahan horta safe maaha inaa operation qofka dhalinyaro markuu yahay inuu ka galo Germany anaa ku geenayo la sug samarkii 2011 buu ahaa waan sugay hooyana markaa ka arkay caafimaadkeeda inay ku fiicnaatay baa anigna dib u fiiriyo oo dahay horta bal waxaan way caawini karaan tajaabi runtii markaa tijaabiyay labadii week oo horey waxaa soo fiicnaaday oo qaabkii muqaalkayga xataa qofka markuu kilida ka haayo dhaqdhaqaaqa dhiiga baa joosmanaya wax yar soo nadaafadiina jirkana baa wax yar halaabayo soo waxaa ku dhacay skinkay baaba noqday barcad barmadow alxamdulilah horta maanta waxaa dhihi karaa ana waxna isticmaalin ba jirkayga sideedii isku soo noqday alxamdulilah ilaah baa ku mahadcelinaya taas xanuunkii inuu ka tagaano just bil fitamiinahan qaadanayo iyo weliba waxaa la talin lahaa dadka islaamka oo dadkana dhan oo fitamiinahan shaki ka hayaan waxaa la ka sameeyay wax natural herbs baa la ka sameeyay welibana waa la ka garani karaa qofka markuu wax yani natural qaadanayo mar waxna chemical qaadanayo inay farash dheer ka dhaxeeyo alxamdulilah horta taas baa nii sheegi doonaa and also haddaa wax yar af ingiriisna ku daro these vitamins are made of natural products they are made from herbs they are made from stuff that can help a lot of people and you should not have a problem taking these products whether you are pregnant whether you are breastfeeding whether you are sick fatally sick anything to do with cancer diabetes anything to do with your health this will help you because it's been trained for your immune system thank you very much aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadka dhan oo qof waliba uu wax gooniya ka arkay relief oo story kala duwan aad halkaa ka dhageysanayseen hadda waxaan rabaa qaabka aad isugu cabbi lahaydeen iyo qaabka aad isugu darsan lahaydeen inaan si fiican idinkugu sheego hadduu ilaahay yidhaahdo qaabka aad isugu cabbi lahaydeen iyo qaabka aad isku darsan lahaydeen baan inii sheegayaa midda tan oo la yidhaahdo galaasig iyo now isku mid weeye waxay ku kala duwan yihiin keliya midna macaan weeyaan midna ma macaana
وقفك وحو إسلع بكران مدة أو فاور استون ليرادو إيا جلاسك إيا مدة أو ناو ليرادو صدق ذا أيو إسلع بكرا أو وحو إسلع بكران ناو ذا إيو فاين إنرجيجا إيو فاور استون صدق ذا أيو إسلع بكرا أو وحو قدر سنكر قفك هدو بهاي مدة أو ليران ناو كيرس أو مسكحة هجاجي سابو قدر سنكرا oo hadduu rabo qofku inuu iscaateeyo oo hilibka iska dhimo isagoon gym tagin isagoon ordin isagoon swimming tagin wuxuu ku darsan karaa midda tan oo la yiraahdo slipsity oo hilibki ka ridaysa iyo weight waa midii aniga weightka iga riday waxaan rabaa marka hadda taas waa productiga saas waxay wataan koob bay wataan koobka biyo ayaad ku shubaysaa meel lead abuu leeyahay oo milligram ay ku qoran tahay biyo cad baad ku shubaysaa oo aan biyo kulul ahayn oo normal ah biyahaasaad qaadahaafkeed iyo qaadahaafkeed iyo qaadahaafkeed aad ku daraysaa waad ruxaysaa koob beeleeda furku buuleeya koobku fur buuleeya furka ku dhaji waa ruxaysaa sa u ruxaysaa waad cabaysaa waa intaa oo kaliya oo waxaad samayn kartaa koobka ama blenderka wax lagu shiido ayaad ku shiidi kartaa say easy ay kuugu noqoto insha Allah oo si aadan u dhadhamin geedihii jirkaaga ama carabkaaga aysan uga dhadhamin qaybtan weeye qaybta ugu muhiimsan oo aan rabo dadkan inaan fahansiyo oo aysan dadkeenu fahansanayn 90% qaybta tan waxa weeye kambarigan haddii aad ka shaqaysato wuxuu kuu siinayaa 5 way buu lacag kuu siinayaa 5ta weyn maxay tahay waxa weeyaan ritareed anaga waxaan u naqaanaa tafaariikh jumlo wax la yiraahdo ama override wax la yiraahdo oo macnaha dad haddii ay ka hooseeyaan ee maasa soo noqdeen ayaa lacag lagu siinayaa iyo maxaan ku raday cash bonus wax la yiraahdo iyo trip buu ku siin doonaa bonus iyo cashna wuu ku siinayaa oo ku leeyahay tangiyo waad soo shaqaysay waayo company kasta aad u shaqayso ninku oranaya maanta 100 shilin waad soo shaqaysay ma jiro runta markaan soo sheegno laakiin relief waxay kaga duwan tahay haddii aad soo shaqayso waxay ku siinayaan lacag bonus la yiraahdo ku leeyahay waad soo shaqaysay aad u mahadsan tahay ambassador program wax la yiraahdo qof markuu ambassador gaaro weeyaan qaybtan waxa weeyaan oo kaliya qofku marka uu soo galo oo distributor uu noqdo waxa laga rabaa 3 qof kaliya inuu keeno 3 qof maxay yihiin waa saaxiibkiisa ama se waa dariskiisa ama se waxa weeyaan dadka asaga u dhow dumaashida seediga habaryarta ina adeerta ina awowga ina abtida waa dadka adiga aad garanayso oo ku dhow oo ku taraskarayn doono waayo qof jid iska marasay hadda tiraado relief product baan hay'adda kuma taraskaraynaya runtu waa taa weeyaan yaad waxaad leedahay barwaaqan maqlay heblay telefoonka qabsatay iyo meel ku aragtay na barwaaqan maqlay ma aragtay bal kaalay waxaan arkay ila arag nin ha noqdo oo sanaag ha noqdo afku doona ha ku hadlo dadkan af Soomaaliga ku hadla waa sem hadduu waqooyi ka yimid hadduu bari ka yimid qof af Soomaali fahmayna ma jirto raas casayr ila raas kabooni waxaan u sameeyay cajiradan waxa waa dadka af Soomaaliga ku hadla qaybtan waxa weeyaan qofku wuxuu ku soo gali karaa 20% wax la yiraahdo ama 25% ama 35% ama 40% wax la yiraahdo percentikaas muxuu ku sameeynayaa aduu faa'iido ku sameeynaya markii aad tiraado waxaan ku soo galay anigu 20% waa customer baa tahay oo qof marka wixii iibsaday lafiis oo cabay baa tahay ma fahmayso qofkii marka adigu wada sheegtay hadduu iibsado adiga faa'iido ku tahay oo haddii hadda aad qof uu ku yiraahdo shaqaan ku siinaya kaala shaqada tar hadduu qof ku yiraahdo 20 shilin ku siina qofna ku yiraahdo 40 keed raaci lahayd qofka ku yiraahdo 40 baa ku siinaya wada raacaysa ila lacagti badan baad raacaysaa qofka 25 tana waxa weeyaan qofku markuu noqdo distributor wax la yiraahdo oo iskambariga ka mid noqdo 25 baa discount la siinaya hadduu qof saddexaad soo galiyo ama se oo iskambariga u sheego ama se asagu alaab iibsadana waxa la gaarsiinayaa 30 dadkaas marka maxaa laga siinayaa 15 iyo 20 wax la yiraahdo iyo 70 wax la yiraahdo waa sida aad lacagta ku helaysid haddii aad la yiraahdo isugu ka aruurinayaan waxana waa commercial afartan marka aad gaadhid waa marka adigu master wax la yiraahdo iska dhigtay master abiliyad bay yiraahdaan marka aad noqotid master abiliyad kaas waxa weeyaan waa basic ee lacagta kuugu furmaysay ee shaqada kuugu furmaysay waa haddii aan kuu soo qaado
waxaa laga yaabaa dadku askarteenniyoo kale yaqaanaa ninku kabtan markuu noqdo iyo markuu dee askari dablaa yahay isma lahan ama alifle markaan hadda waa markii aad noqotay ninkii madaxda ahaa oo kabtanka ahaa waa halkii ay shaqada kuugu furantay weeyaan oo maxaan ku rahda nin koox yeeshaad noqonaysaa halka kan hadda adiga weeye adiga ayaa lagu yidhi halka kan weeye meesha ugu muhiimsan inaad fahantaan waxaan ka idiin sheegaya halka kan waa aniga oo adiga markaas waa anigoo xalimo ah kamariga markaan soo galay master baan iska dhigay magacayguna waa xalimo markaan arkay waxa uu taraayay oo la iiga sheekay waxaan aniga waxaan ma sugay anigoo xalimo master baan iska dhigaya waxaa timid Samiire Ibrahim waxay aan u sheegay oo Samiire Ibrahim ay soo galay waxay tiri anigu ma sugayo waxaan aad sheegaysaa anna master baan iska dhigaya waxaa ku xigsatay shugri waxay tiri aniguna master baan iska dhigaya waa hal line waa saddex qof oo isdaba taala saddexdeedii master markaan noqonay waxa weeyaan kambanigu wuxuu ka siinaya anigoo u horeeyay kambanigu gabadhii Samiiro aan soo galiyay waxa ay keento aniga wuxuu iga siinayaa 8% shugri oo ku sii xigtana wuxuu iga siinayaa 6%. Zainab Giyaajo oo ku sii xigtana wuxuu iga siinayaa 4%. waxaa ku sii xigay Salmo Axmed wuxuu iga siinayaa 3%. waxaa ku sii xigay Nasriin wuxuu iga siinayaa 2%. waa hal line oo kaliya ka waran marka saddex line adoo samaysto oo sidaas ah saddex line oo sidaas markaad samaysto waa markaaba dhinac u seexanaysa baadaa shaqada baba ka fakaraya waxa weeye ilaa baasha raadinaysa baba hoosta ka soo galaysa waayo marka ayada waxa laga siiyay dadka aan ku sheegay oo hadda oo halka laynaha 480 baa laga siinaya oo lacag ahaan oo commercial ah markii uu kambanigu helay oo noqday dadkaaga waayo qof walba saddex qof baa laga rabaa dadka aan soo sheegay 720 baa dadkaagu gaareen markii ay gaareen wax ka laga siiyay lacagta qof kastaba 2,000 buu la yimid ilaa waa dadkii master noqday saddex line bayna ahaayeen qof walba 2,000 point wax la yiraahdo samaystay boonta wax la yiraahdo ku shaqeeyaan marka 2,000 point waxa laga siinaya 480 baa laga siinaya oo kambanigu commercial ku siinaya waa sii shaqeeyo dadkii baa qof walba sii socday oo line walba waa sii dheeraado dadkii waxay noqdeen 81 markay noqdeen waxa uu kambaniga aad u keentay aniga konton waxaad u keentay konton iyo 4 point wax la yiraahdo aad u keentay kambanigu wuxuu ku siinayaa 2,160 marka hore oo ana maxaad haysatay waxaad haysatay marka aad 18 keentay waxaad haysatay 1,080 iyo kor oo 6 markaad haysatay 480 waxaaga waa la soo kaadarayaa lacagtaadii 480kii iyo 1,080kii 2,160kii waa la isku soo darayaa dadkaaga waa sii socdeen waxay noqdeen 81 iyo 4 iyo 20 iyo 3 qof bay noqdeen waa sii socdeen oo waa sii shaqeeyeen kambanigu wuxuu ku siin doonaa 4% oo wuxuu ku siin doonaa 3% hal ma hadal kuma jiro oo wuxuu ku siin doonaa 4,000 iyo 86 ها 860 buu ku siin doonaa lacagtii oo la isku soo daray maxay noqonaysaa waa lacag fara badan intii kala ku soo dar oo kii jimlada keenay iyo kii maxaan ku tafaariiqda keenay iyo waa ku goonay waxa soo dhan waa hadhow lagu soo qoraaya waa sii socday kambarigii oo marka inta dadkaaga ay noqdeen 243 ay noqdeen waxaad u keentay boonto wax la yiraahdo 480 iyo 2% buu ku siiyay 2% aad waxa sleeda waa wax yar laakiin lacagta lagu siinayo maxaa waaye 9,000 iyo 720 way lacagta lagu siinaya waad sii socotay waxaad gaadhay ambassador baad gaadhay oo 2 qof ama 3 qof oo kugu xigta ambassador soo noqotay lacagta aad qaadanaysaa maxay noqonaysaa oo la soo kaadarayo 18,000 iyo 300 qofkee helo bishii inta qof ilaa nuguma jiro qofka ugu badan baa 500 qaat oo lagu canaado waad soo daahday shaqada waa laga ceyrnay halkan carruurtaad maxaa u keentay cid ku dhimayso shaqada waa laga ceyrnay cid ku dhimayso marka aad rabto waad seexan marka aad rabtana waad soo shaqaysan waa shaqo firidhoon ah waxa ku dheer halka kan waxa weeyaan markii aad gaadho
meesha tan waa meesha ugu sareyso oo bonuska lagu siinayo cash bonuska lacagta ugu badan oo lagu siinayo weeye ilaa ambassador baad gaadhaysaa oo waxaad noqonaysaa qof meel sare ka jooga cod baad yeelanaysaa oo wadankaad rabto baad geyn kartaa markaa kambanigii oo qof cod le baad tahay oo shaqaysan karaysa halka kale waa markii ambassadorada waxaad ka qayb galaysaa intaa oo kun oo qof yaad ka qayb galaysaa oo lagugu yeeraya oo waxaad tagaysaa wadan kasta lagu dirayo oo ayagu ay bixinayaan ticketkii oo ay bixinayaan maxaan ku raahdaa lacagtii oo ay bixinayaan maxaan ku raahdaa hotelkii oo adigu aad shilin bixinaynin shilin ka baxaynin intaba ayagu ay bixinayaan 100% adoo free ah adoo lacagtii laga bixinayo hotelkii adoo laga bixinayo maxaan ku raahdaa flightki meel kasta ay ku dirayaan markaana codkaaga uu sii siyaadaya waayo dadkaagii baa sii badanaya oo waxaad yeelatay 4-3 qof oo ka hooseyso ambassador ah naftaydi iyo naftiina waxaan ku waaninayaa kambanigana sida weeyaan walaalayaal inaad sida tahay intaad u fahantaan aad maxaan ku raada aad sida tahay ula socotaan sida taan uga shaqaysataan inta waxa dheer oo aan in kugu darahaya lambarkayga qofkii doonaya inuu ma garanay la soo xiriiro ama uu nala soo hadlo insha Allah bil karim waanu siin doonaa waana kamaniguna wuu u sheegi doonaa insha Allah bil karim haddii Ilaahay yiraahdo intaasaan ku soo gabagabeynayaa maanta insha Allah bil karim waan si fiican waa isla xiriiri doonaa ama waan isu maqli doonaa aad iyo aad baad mahadsantiin intaas oo kaliya ma ahan lacag oo kaliya ama shaqo oo kaliya ma ahan waxaan kaliya oo rabaa inaan inii sheego waxa aad ka helaysaan waa qaabkii caafimaadka waayo halkan waxaad ka dhageysanaysaan intaas oo qof oo qofba wax kaga ladnaaday ama waxaad arki doontaa malaayiin kale oo iyaguna ku ladnaaday waxa weeyaan horta caafimaadkiina waa inaad u jitaabisaan oo u cabtaan oo u fiirisaan marka aad ka aragtaan caafimaadkiina wax weyn oo isbedel aad ka aragtaan waad ka shaqaysan kartaan oo qaabka lacagta ayaad ka heli kartaan haddii Ilaahay idmo laakiin waxaan ina leeyahay marka ugu horeyso qof walba waayo su'aalo badan baa ka hor imaanaya haddii aadan jitaabin matal aadan cabin oo aad tiraahdo adan wixiiba la soconin hebel baa waxa ii sheegay horta adigu ma cabti maxaad ku noqotay maxaad ka heshay xagee ku aragtay haddaad tiraahdo anigu ma arag hebel baa ii sheegay cidi wax ka dhageysan mayso runtu taa weeyaan marka taa waa inaad maxaan ku raada aad had iyo jeer aad la socotaan adinku marka hore inaad baraweysaan oo cabtaan oo la socotaan qaabka aad soo galeysaan waxa weeye customer waad noqon kartaan mise distributor baad noqon kartaan distributor macnaheedu waxa weeyaan wax inaad aan dhinaca Yurub form baa la buuxiyaa dhinaca America ama Canada internet baa laga buuxiyaa asagana form markasta form baa la buuxiyaa laakiin qaabka loo soo galaya marka hore waa inaad adigu two waygaas ay tahay inaad adigu tahay qof customer kaliya oo maxaan ku raaa wixii iibsanaya ama se inaad tahay qof ma garanaysaa ee doonaya inuu labadii noocba isku sameesto oo caafimaadka iyo businesska labadaba isku sameesto oo aad kamariga toos soo gashay si lambar lagu siiyo information saad u heshid saad buugtii ama cajaladii aad u aragtid haddii kaleeto qof customer baad noqonaysaa wixii iibsada had iyo jeer laakiin aan meel gaaraynin marka distributorku wuxuu uga duwan yahay customerka waa lagu jibinayaa in raqiis baa lagu dhigay alaabtan waa qaali waa lagu raqiisanaya marka ugu horeysa bogiska dalbati 25 baa laga dhimayaa marka xigtana waxa laga dhimayaa 30 marka ku xigtana waa 35 marka ku xigtana 40 baad gaaraysaa 40% baa laga dhimayaa boqolkiiba marka naftayda iyo naftiina waxaan ku waaninayaa walaalayaal dadka af Soomaaliga ku hadlow inaad horta aad jitaabisaan aad cabtaan oo waa la yirida aad iska deysaan wax la yiraahdo waa jirtaa waxyaabo badan oo suuqa la soo galay dad baa oranaya waa xaraan ama sadad baa oranaya maxaan ku raa waxba lagu noqdo wax lagu noqdaa ma jirto xaraanna ma ahan waayo waxan waa xawaalad oo kale haddii aad shaqaysano commercial wax la yiraahdo lagu siinaya haddii aadan shaqayno dicdiro wax ku siin maysaba ee caafimaadkaaga horta u baraway una jitaabi assalaamu calaykum waraxmatullahi intaasaan ku soo gabagabeynayaa maanta